أنا لا أسافر حلوة ما شاء الله محل ده تقرأ يعني أنت نعم ما أنت إنك كيف فكرة جبل الحشاوة كحتى طبعا أباي مسوا أسبوعنا في عام مثلا ناقة ساعة سعيد سوري صوصة عونينا السجادي ها هو هذا إدريس بابا أباي إيه ورن أنك مغلي أي أبو معانا وأخوتي أنا ولا بلا تلا حالك وأوكي ما شاء الله وحنا لنا أنك أنت كلوا أوكي marka ma guur baa rabtaa in lagu guursado oo maya nin ha lagu keeno ma xumay nin aad jeceshahay miyaa jira mise ninkaad rabto waa iska guursanaya dib lagu keeno إدريس محمد يا خايا قفك dadka soo wacay baan uma haysan abaayo waxaan ku iri ma nin ku calaamadaysan oo jeceshahay baa jira oo ku siinaa mise nin un baad rabtaa ma jiraan ka rabtood qaadanay miya kaar waa qaada ani waa kaar aad ku qaadana bismillah warsaana la soo wacay afar laatan saac saana la soo wacay ma telefoonka siyo soo wacay male Mrs. Wale gabadha igu dhiib gabadha jacayl baa hay wax yar baan rabaa inaan ka daweysii telefoon taas ninka aragtay jeclaataa ma joogtid dhib male anaa ka saaray jiniyaha u dhiib adiga telefoonka nin laga uumiyeer aroos kala kacsan baan ku leeyahay masaxanis farxad kaliya waa ninka ugu horeeyay oo cida ka soo doonana fiiri ani wax ma soo baahan misalkiina dhageysan hortore ابو سوق واحد 2 دقيقه لاني كان لازم بسم الله الرحمن الرحيم لنا هلا عاوي هاي ابو يو تشكده ina adeeron ku soo doonanaya marba hadaad leedahay ku jeclahay gabar saan qurux badan aad tahay yaal ee ka hormarna marka reerkan ka soo doonanaya nin kale oo imaanay inta nin kale imaanay أنا أشيء حكوا شيء أبو جبران الله قروح قفة وحكيت تقوى بيرضي الله تداورك جبران وده حد صوت قعمها بسم الله قفة aniga xaad ina adeer aniga xaad hadaan rabo xajiinan guriga ka soo jeesan lahay xajiin xaad ma gabar fiican oo qurxoon baan rabaa dhageyso عفوا بوسني xajiin baan guriga soo dhigan lahaa تعال macnaha way qurux badan tahay gabadha xaadi waxa uma baahnaba gabadh aad qurux badan weeyaan intaan aan hadda ka arkay ugu filan aniga saan baan ku soo doonanayaa haddii ilaahay yiraahdo ولدا فما أركب قروح ذا ضريلي وأركب ذا وهذا اللي يا بلاد بسم الله سماح حتى لك ميلاyo cambuulada aan cunay iska dhaaf laakiin is guursanaynaay انا ولقي علي عمبوله كفي عمل عمبوله اللي سو كوريو هيدي اسلاده عمبوله اللي سو كوريو والله بلا تلا habeen kasta عمبوله ku cashiya saaxib see wada seexanayna marka gabar cambuulo waxaad kugu duwanaa waa cambuulada ma fahantay horta hore caawa kadib aan cuna cambuulo caawa kadib cambuulaha cunin bariis iyo baasta cun foolxuma noqonaya sida gabdhaha meelaha joogaan oo foolxumada badan camal aan noqonaya hadee because naagtan adag ma noqonaya hadaa bariis iyo baasta la cuna hadaa cambuulo cuni lahay bis hadaa cambuulo cuni lahay ani camalay ahaan lahay waxaan ku weydiinayaa hadda haddii aan reerkaaga kaa soo doonto maxaad igu xiraysaa yacni guurkaaga maxaad igu xiran lahayd caawa reerkaaga haddaan rabo inaan kaa soo doonto caawa haddaan caawa reerkaaga kaa soo doonto maxaad igu xiri lahayd yacni maxaad sheegan lahayd alamaya wiilka quruxda badan daan anu wax kale uma baahanin ba bismillah anu wiilka waraa xabad min baa laakiin aan shuruuba wataa haye hadaa intaas ka bax wiil qurux badan inaan arkaa laga yaabo mogtahay kadibna marka soo dhaq nin kale hadday aragto wayba ku daarsado gabadhan dabeecad okay marka one last question baan ku weydiinayaa guurkeena hadda saanaan ku heshiin hal su'aal aan ku weydiinayaa marka guur hore ma usoo martay aniga garoon stadio muqdisho iyo stadio konsi waxaan jeclaa garoomada haddaan ku ciyaarayo ciyaaryahanka ugu horreeya garoonka soo gelay inaan noqdo ma fahantay garoon iga horreeyay bismillah rahmaan rahiim wallahi bila kala waa cusubaa
gaarin ma fahantay weli lama fiiqin dhiilka wuu dhacay qandaraaska saana ku dhacay Idris maamada Bebe iyo warka sheega kuu waxay sheegaa. hadii la yiraahdo weli Idris Bebe hello maslaxa ku maqlayaa dhaga hadalka jooji naagta caadishkaanso okay garoon lagu soo dheeliyay waxaas maxay tahay ka hadlayso reeca naga qalay hanoo gafintay okay macnaha ma ina adiga kugu dhaga hadlay bay kula noqotaa bahay no garoobka يعني nabiga u مثلا duceeyay calayhi salaam waa duceysan tahay ها adiga شرف gabadhan بيك aan kala sheekaysto ha ay qasin adiga waa lagu duceeyay nabi maxamed calayhi salaatu salaam ku duceeyay اوكي هايكفن ماشي قراوة صارت حشوضة seeba lagu dafaa nabi maxamed adiga nabiga ku duceeyay anigana waa ku duceeyay ummadda Soomaalida ay ku duceeyeen maslaxo mustaqbalkayga ha ku ciyaarin sheeka ay socoto هاي صعب ina adeer maslaxa waxay noqotay xaaskiga koowaad caaw بسم الله مصلحة بحنا waxaan kuu dhigayaa dhageyso waxaan kuu dhigayaa aroos gabar Soomaali ah ana weligeed loo dhigin ninka ma soo guursada balweyd dameero maaragtay baan saa isku daba dhigayaa laamiga dhaqanka indaan kuu guursanaa cambuula laga karnaa arooska duulaa yiraahdo naag ma soo guursan sooma ani dhexdiina kuma jiro okay ani nin oo ma aragtaa aan hor wadaayo u baahan nin i hor wadaayo u baahanayo okay iftiinay labadiina camoolaadkiisa ku soconaysiin wiil wax maadan arkin meesha tartiib la istajiyo la sheekaysta ilmaatiin الله مصلحة يا وعبا waxaan ku weydiinayaa abbaay lacala arooskeena haddii aan ilaahdo cambuulaha laga kariyo soo ku faraxsan ورحم الله سيتم مشاريع دي اللي كرا فرح سنة igu hadlay arooska qarniga oo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya ku dhigayaa 12 kun oo dameerna oo isku daba xirayaa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله تمارس كده أنا عربات حتى ديار بومهاي dhiilka uu dhacay Soomaali Maxamed noo soo duceeyay hadii Ilaahay yiraahdo maslaxo adigana insha Allah waxa weeyaan mustaqbal wanaagsan ku rajeynaa inaad horan kuu sheegay ninaan hor wadaayo marwiyaan ku dhahay nin i hor wadaayo u baahanahay marka labadiina ilmaa tihiin faataxada idin mareynaa soo wadada Ilaahay noo soo aniga hooyadiina maamadiina oo kala ahay marka caadi iska dhigado may adiga waa duceysan tahay nabiga ku duceeyay calayhi salaatu wasalaam kor horta